fadlan hanaga baqin inaa follow page kana dhahdo si nafaqsan muuqaalka mahadsanidka faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa jug xoog leh oo inta badan si weyn looga maqlay magaalada caasimadda ee Muqdisho xilligan oo saacadda Muqdisho ay tahay saqda dhexe habeenimo badii shacabka caasimadda ku dhaqan ayaa maqlay dhawaaqa qaraxa oo aad u xoogana waana xilli guud ahaan laga jifo caasimadda inta yar ee soo jeedana jiif isku diyaarinayso sida la sheegay qaraxa ayaa ka dhacay ku yaala degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir waxaana jira khasaare kala duwan walow aan la ogaa karin xilligan baaxadda khasaaraha maadaama ay tahay xilli dambe oo habeen ah dad kala duwan oo aan la xiriirnay kana agdhow goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa tilmaamay in rasaas ay ka daba qaraxa ciidamo gaashaman oo dowladda federaalka Soomaaliya ah ayaa isku gadaamay guriga uu qaraxa ka dhacay ciidamada miinabaarista ayaa hubinaya ammaanka abaabka hore ee guriga uu hortiisa qaraxa xoogani ka dhacay ilaa hadda lama sheegin khasaaraha ama dhibaatada inta ay la eg tahay uu geystay qaraxa waxaana hadda ammaanka hubinaya ciidanka booliiska ee u tababaran xaqiijinta waxyaabaha qaraxa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa la filayaa in ay ka hadasho qaraxa xilligan dambe ee habeenka ah ka dhacay degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir wuxuu ku soo kordha fadlan halkan ayaa idinku soo gudbin doonaa isha ku haya hadduu Ilaahay raali noqdo.